asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waa Kodan Muuse. waxaan rabaa inaan in yar idinka fahansiiyo sida aad ugu soo biiri lahayd ama aad isku diiwaangelin lahayd marka aad kusoo biiraysid Co-op 50/50. si aad ugu soo biirtid marka waa inaad gashaa website-ka coop5050.com. kadib waxaad dooranaysaa meeshaas ay ku qoran tahay Join Us. waana inaad haysataa wax la yidhaahdo donor key. donor key waa nambarka uu ku siinayo qofka ku casumay ama qofka ku baray Co-op 50/50. waxaad taabanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay Join Us. markaad Join Us kliigsiisid waxaa kuu soo baxaysaa khaanad ay ku qoran tahay isdiiwaangeli ama ay ku qoran tahay Register. waxaad gelinaysaa donor keyga, waxaad gelinaysaa magacaaga, magaca awowga, emailkaaga, emailka aad markale gelisid, taleefankaaga, iyo waxaad gelinaysaa password cusub aad samaysatid. kadib waxaad daawanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay license fee. kadib waxaad dooranaysaa donationka meesha aad kasoo gelaysid, hadday noqoto 25, hadday noqoto 50 ilaa iyo kor. join ayaad taabanaysaa. kadib wuxuu ku keenayaa qaanadaas ay ku qoran tahay confirmation. shuruudahaas kor ayaa buuxinaysaa oo click siinaysaa. markaas ka baxda ayaa dhehaysaa confirm and proceed. intaad taabatid ayuu haddana wuxuu ku keenayaa qaabka aad ku bixin lahayd lacagta oo ah great decision, oo ah meesha ugu habboon oo lacagta ku bixinaysid. waxaad taabanaysaa oo asaga hadda inuu siiyey best choice oo ah Co-op wallet. Co-op wallet markaad taabatid waxa uu ku geenayaa khaanad kaleeto oo aad dooranaysid cryptocurrency-ga aad rabtid inaad lacagta ku bixisid. annaga hadda waxaan dooranaynaa Bitcoin baan dooranaynaa oo rabnaa inaan lacagta ku bixino. markaas kadib waxa uu ku siinayaa meel kore oo aad ku qoraysid ama ku qoran tahay address code-kaaga. calaamadda dhinaca midigna waxaa ku qoran lacagaha qaabka lacagta oo bixinaysid oo listi ah ayaa dhinaca midig ugu qoran. kadib waxaad taabanaysaa meeshaas saa ujeedaan statuskeena weli wuxuu ku jiraa waxa la dhaho waiting deposit ayaa ku jirna oo waxaana sugaysa inaan lacagta aan bixino. haddii appka ama QR-kaaga aad haysatid Bitcoin, waxaa soo bixinaysaa mobilkaaga, waxaa ku aadinaysaa meeshaas ay ku qoran tahay, meeshaas ay khaanadaas ayaad ku aadinaysaa. kadib waxaad taabanaysaa ama haynaysaa calaamadda iskaanka. kadib waa confirm garaynaysaa. kadibna lacagta sidaas ayaad ku bixinaysaa. waxaa kaloo samayn kartaa weegaas kale oo lacagta aad ku bixi kartid adiga oo to iyo BTC-ga nambarkaas aad ku kala qoraysid addresska iyo labada linki oo aad ku aragtid kor, send iyo addresska oo aad kor ku qoraysid. kadibna waxaad taabanaysaa calaamadda send. waa sugaysaa cabaar, waa sugaysaa inta uu paymentigaaga uu confirm garanayo. hadda waxaa noo soo baxday paymentii waa dhamaatay oo lagu guulaystay. waxaa kusoo baxday statuskii meesha ahayd waiting deposit, waxaa kusoo baxay in lacagtii ay baxday. kadib waxaad tegaysaa my dashboardkaaga ayaad tegaysaa. waxaad dooranaysaa wax la yidhaahdo my walletkaaga fiirinaysaa, my money. kadib waxaa arkaysaa dhammaan waxyaalaha aad bixisay, depositkaaga qaabka u baxay, 25 euro dollar aad dooratay mataqaanaa labada meelood ay kala aaday. waxaadna ka helaysaa waxaa waaye waa dashboardka my wallet. kadibna hoos ayaad my money, kadibna hoos ayaa waxaad dooranaysaa my wallet. intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii yaraa aan ku baraynay qaabka aad isku diiwaangelinaysid markaa rabtid kusoo biirtid Co-op 50/50. waa anigoo ah Kodan Muuse oo idin leh waa mahadsantiin.